السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشنا قيمة يقايا نقبض ميل والباجوكتان وحد كسو دواتان مقال عصب مقال كان إن شاء الله وحد كداون دوتان سلسلة حجوين والهر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقابك حما يسنع وكذا جوابي وأنا قيبت لبعض مقال كيني هوري balse marka hore daawada haddii aad tahay saaxiibka cusub channelkeena xigmadyahan waxaan ka codsaynaa inaad subscribe noo saarto sidoo kale aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya mar waliba hela muuqaaladeena cusub sidoo kale ha hilmaamin like share iyo comment inaad siiso muuqaalkan mahadsanid weligaana guuleyso muuqaalkeena hore waxa uu inoo joogay imaam shaafici oo la weydiiyay su'aalo aad u adag waxa uuna kaga jawaabay xafad oo aad u xeeladaysan mar kale ayay weydiiyeen nin ayaa qaatay koob biyo ah si uu u cabo wuxuu cabay koobka haafkiisa oo xalaal ah waxaana laga xarimay biyaha kale ee ku soo haray koobka siday ku dhacday arrintaas imaam shaafici ayaa ku jawaabay ninka wuxuu cabay koobka haafkiisa kadib sankiisa waxaa ka soo daatay dhiig oo ku dhacay koobka gudihiisa dhiigii ayaana ku milmay biyihii sidaas ayaana biyihii lagaga xarimay mar kale ayay weydiiyeen ka waran nin dugtay salaad markii uu u salaamo noqsaday dhanka midig naagtiisa ayaa ka furantay markii uu u salaamo noqsaday dhanka bidix salaadiisii ayaa burtay markii uu cirka fiiriyeyna waxaa ku waajibtay bixinta 1,000 diinaar imaamkii ayaa ku jawaabay marka uu u salaamo noqsaday dhanka midig waxa uu arkay ninka qabi jiray naagta hadda uu qabay isaga oo markii la waayay naagtiisa uu guursaday maadaama uu soo noqday ninkeedii horena isagana naagta way ka furantay markii uu fiiriyay dhanka bidixna wuxuu dharkiisa ku arkay najaaso sidaas darteedna salaadii ayaa ka burtay markii uu samada eegayna wuxuu arkay bishii oo soo baxday isagana waxaa lagu lahaa dayn 1,000 diinaar ah waxayna ballantu ahayd inuu bixiyo bisha bilowgeeda sidaas darteed waxaa waajib ku noqotay bixinta 1,000 diinaar dadku maagan ileen xujo kama dhamaatee mar kale ayay imaamkii weydiiyeen nin ayaa naagtiisa u dhiibay kiish buuxa oo xiran wuxuuna u sheegay inay ka banayso waxa ku jira gudihiisa wuxuuna shardi kaga dhigay in aanay furin jeexin ama aanay gubin kiishka haddii ay saddexdaas arrin samaysana ay furan tahay imaamkii ayaa ku jawaabay kiishka waxaa ku jiray sonkor ama cusbo naagtana waxa ay samaynaysaa oo keliya inay ku dhex rido biyo kadibna waxaa dhalaalaya sonkorta ama cusbada ku jirta kiishka gudihiisa iyadoonan furin jeexin ama gubin toona qoomkii ayaa la yaabay fahamka maskax fudaydka iyo jawaab celinta degdega ah ee imaamka ugu dambayna waxa ay weydiiyeen 2 nin ayaa saqafka guri wada saarnaa mid ka mid ah ayaa dhulka ku soo dhacay wuuna dhintay kii kale waxaa laga xarimay naagtiisa ee sidee ku dhacday arrintaas imaamkii ayaa ku jawaabay ninka soo dhacay ee dhintay gabadhiisa ayuu u guuriyay addoonkiisa oo ahaa ninka saqafka guriga la saarnaa markii uu dhintayna gabadhiisa waxa ay dhaxashay addoonkii waxayna yeelatay addoonkaas oo ahaa ninkeeda sidaas darteedna waa laga xarimay oo halkaas ayuu ku burburay guurkooda madaxweyne Haaruun al-Rashiid ayaana qarsan waayay sida uu kaga yaabay xigmadda caqliga iyo jawaabaha xeeladaysan ee imaam shaafici wuxuuna ku yiri waad cadaysay xujada waadna wanaajisay waad fasirtay waadna xeel dheeraysay waad cabirtay waadna fasaxaysay haddaba halkaas waxaa ku soo dhamaaday labadii qayb ee barnaamijkeena silsilada xujooyinka imaam shaafici la hordhigay iyo qaabka xigmadda badnayd uu kaga jawaabay muuqaalka xiginta uu kulmi doono walaalkiin Cabdirasaaq Cabdullaahi oo idinku dhaafay sida ay nabadgeliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.